madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta qasriga madaxtooyada ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka gaadiidka ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti, wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada dalkani Jabuuti, iyadoo sidoo kalena uu halkaasi ku wehelinayay safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya. kulankan ayaa loogaga hadlay arrimaha la xiriira iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uga mahadceliyay taageerada ballaaran ee had iyo jeer ummadda Soomaaliyeed uu la garab taagan yahay, isagoo sidoo kalena ku ammaanay in dowladnimada maanta ka jirta Soomaaliya uu udub dhexaad u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo shacbiga Jabuuti intaba. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu sidoo kale ka warramay howlaha ballaaran ee ciidamada hiil walaal iyo kuwa amisom ay ka wadaan Soomaaliya, isagoo oo tilmaamay in had iyo jeer Soomaalida dhinacyadeeda kala duwan looga baahan yahay isku xirnaan, iskaashi iyo sidii loo heli lahaa ummad midaysan oo meel wada jeeda. intaa kadib ayaa kulan ilbaabada u xiran yihiin labada madaxweyne ay halkaa ku yeesheen. waxaa markii uu soo idlaaday warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, waxaana warbaahinta uga warramay kulankan iyo arrimaha gaarka ee lagaga hadlay. aad baan u mahadsantihiin. dabcan waxaan marka ugu horeysa u mahadcelinayaa shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha reer Jabuuti. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa oday Soomaaliyeed, waa oday dadka Soomaaliyeed meel kasta degaan sharaf iyo karaamo ku dhex leh, taariikhna ku leh. waxaan ugu muhiimsanayn inaan soo booqanno, soo siyaaranno, la tashanno guud ahaan Jabuuti iyo horumarka ay gaartay aan u kuurgalno, kana codsanno in wixii nala qaban karo ay Soomaaliya la qabtaan marxalad kasta u baahan yihiin. waxaan dib u milicsannay 20 guuradii ka soo wareegtay shirkii Carta oo ah waxa maanta Soomaaliya saldhigga u ah horumarka dowladeed ee gaartay. waxaan weli ka rajaynaynaa, xasuusinaynaa kaalintiisii weli inaysan dhammaan loo baahan yahay. marka kulankeenu wuxuu u badnaa salaan, xog waraysi iyo inaan Jabuuti horumarka ay gaartay aan soo booqanno. waxaan uga mahadcelinayaa safiirka iyo wasiirka aan martida u ahayn oo runtii kaalin fiican maanta nala qaatay. waxaan rajaynayaa dhinaca horumarka, dhinaca dhaqaalaha ay gaareen inaan wax badan uga dayan doono, wax badan oo isweydaarsan doono, wax badan iska kaashan doono haddii ilaahay.